maanta waxaan idinku imidna waa idinka guddiga meeshaas waxa ku qoran si ilaahay dartiisa oo saad u dhaarateen fulinteeda dadka Soomaaliyeed inay ugu cadaalad sameeyaan insha Allah oo cadaalad cad ilaahayna markhaati buu ka yahay wax kale kama rabno waxba uma soo dhiibanayno wax aan ka doonayna malaha waxaan rabnaa dadkaas Soomaaliyeed ee ganacsatada ah in cadaalad loo sameeyo waxay cadaaladiinu ka soo bixi doontaa saad wax u saxdaan haddii hal darajo qofna siiyo masalan 30 midna uu laba siiyo waxay ku tusinaysaa meesha inayna waxba inay midkood baa qaldan labadaas waa in isku dhawaadaa because haddaad la kulligan daacadnahay waxa shuruudaha soo bixiyo waan garanayna anu macallin mana waa aqaanaa sixitaanka dawlad haddaan nahayna dawladdu waxay baahay dadka inay soo xajisiiso oo ay ka bixiso oo ay u fududayso laakiin hadiiba tii la waayay inagii dawladda haddaan anagina isbaaro dhigano iska dhaaf inta wax kare oo aan keeni warqad saxiixaba ka sii goosto oo kii kala inta sii dhigto oo isbaaro sii dhigto oo kii dawladda u shaqeynaayo isbaaro dhigto oo kii shirkadda lahaa ay qaadayay tigidhka goynay isbaaro sii dhigto oo kii sameynayay maxaan ku dhahaa xamlo lahaa meel uu kala 100 isbaaro sii dhigto oo kii guryaha ijaaraya uu isbaaro kala sii dhigto oo kii meel kasta oo kii maxaan ku dhahaa baaritaanka sameynay oo kii baasaboorka sameynay oo kii kulli 22 isbaaro oo qofkii ever lagaga dhigayo bal maamada ama odaygaas aabaha ah oo neefafkii arigaha soo gatay dhowrkii halaad soo iibsaday beertiisii soo gatay ganacsigii yaraha soo dhameeyay soo gaday gurigiisii soo gaday waxaas ma qabataa ilaahay ku dhaarshay dadka Soomaaliyeed yani inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yadhlimun ilaahay ma dhihin dhibka inagu dhacaya waxyaabaha aan kasbanay ee ku dambaabnay xajka kamid ah dadka Soomaaliyeed ee la yani ilaahay u sii socda ee isbaarada loo dhiganaya qayb weyn kamid dhibaatada aadka u weyn ee soo gaartay kamid ah dad la gadanayo sidii adoomadii 200 aniga isii أنا 200 بالله أنا 300 بالله أنا 400 بالله هبل 500 بوله لبنا أنت كم بالله كنتم بالله كنت لا دول دقيقة أودينا برسنتج كسي قاعد أنا كوسو كحينا يا هبلو 200 بان سوق قاعد يا دينا وكوسي كحين وكوسي جود بيا برسنتج إيسار أنا هبل إيسار أنا هبل إيسار عيب باك صوته واحد أو أرنتاس فرنتي ضد مركا إن اللي يراهدو waxaa dhacday dawladaha dariska ah qofku inuu ku xajiyo 1600 annana imsa ugu dambeysay oo lagu xajinay 5500 ilaa 6000 in la gaaro qof Soomaaliga ayuu gaaray marka waa isbaaro loo dhiganaya marka in qofkii Ilaahay uu soo caabudo xajkii guto ayaa isbaaro loo dhiganaya marka waa sad an sabiilillah caadi ah oo dadka laga celinayay inay soo cibaadaystaan oo Ilaahay caabudaan ayaa loo diiday meel badan kuwana masaajidkii bay noo diideen inaan ku tukano dadkii waxay dhaheen waa la leynaya kuwana kanayba isbaaro dhigteen ba xajkii bay dadka u diideen oo inay Ilaahay soo caabudaan ayaa iyaguna u daad marka ummad dhinac kasta laga ciqaabay ayay noqotay ummadda Soomaaliyeed waxaa inta ka sii daran waxaa la rabaa xajka in la siyaasadeeyo xajku siyaasad ma galo cibaadadu siyaasad ma gasho ruknu min arkaan al-islam siyaasad ma gali karo meel la siyaasadeyn kara ma rukn min arkaan al-islam oo salaadii shahaadateynki iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajka siyaasad ma gali kara lama siyaasadeyn karo lama kooxayn karo lama guruubayn karo ma noqonayo hebel iyo waxaas ma aha waxaa la rabaa xajka dadka muslimiinta ah in loo fududeeyo waxaa la rabaa in Ilaahay loogu dhawaado
waxaa la rabaa in lagu cibaadaysto janno lagu galo oo deedna dadka loo khidmeeyaa la rabaa markaynu u tagno dadka xajka jooga muslimiinta ah cuntayna la daba cararaan ajri ayagoo ka raba annana shilin kala had iyo cadaab iyo inta ka dhufso ayaan annagana la daba soconaa dadka marka waxaa loo baahan yahay in aan isbedelaa loo baahan yahay ma banaana in la tasyiisiyo oo siyaasad la geliyo xajka mana geli karo mujtamaceenu soomaaliyeed waa mujtamac muslima sunni ah shaaficiya almadhaba wasaaradda waxaan rabnaa inay saas ku hogaamiso bulshada bulsho muslima sunniya shaaficiya almadhaba maxaa u leenahay khilaaf ma rabo ninba inuu meel intuu in kala soo aruuro deedna uu marka dambe meeshuu la rabo inuu la aado gurigiisa wuxuu rabaa ku sameeyo laakiin babliga iyo bulshada dadkana waa shawaafic ha loogu fatwoodo shaaficiga fiqiga shaaficiga ha lagu socdo dadku waxa ku akhristaano ha ku dhaqmaano xajka ha ku gutaano ha ku socdaan yaan confusion lagu ridan oo aan la wareerin dadka aan la wareerin sidaa darteed innaga xajka waxaa u qaabilsan inay nidaamiso hogaamiso monitor garayso ilaaliso ka shaqayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cid kale oo ka shaqayn karta oo u idman ama shacab ha ahaado ama dawlad ha ahaadee ma jirto waxaan rabnaa si isxisaabtanka iyo ilaalinta hufnaanta iyo nasaahada si loo ilaaliyo waxaan rabnaa mas-uuliyadda in lasoo koobo yaa guddi noqonaya oo annaga noo ah sheekh mukhtaar yaa xajka geynaya dadka sheekh mukhtaar wasiirka haddii uusan sheekh mukhtaar joogina wasiirka kale wasaaradda annaga noo ah wax kasta wasiirkaan la xisaabtamaynaa qofka hadduu wax xumaado mas-uuliyadda qaadaya u qoolan waa wasiirka wasaaradda 100% mas-uuliyadda isagaa qaadaya isagaan ku ognahay annagu business kama rabno oo xoolo kama rabno oo recommendation kama rabno oo wax kastoo nala soo dul saaray waa diidnay oo ma ogolin madaxweynahana waa soo dhaariyey sheekh mukhtaar waa ogi anna sidoo kale waxaan rabnaa marka cadaalad in la sameeyaan rabnaa oo dadka loo cadaalad sameeyo wasaaradda waxaan ka rabnaa mas-uuliyadda inay qaadato sanadkan waxaan tijaabin doonaa oon imtixaanaynaa qofba qofku sii imtixaanaya anagu iimaanka sheekh mukhtaar baan ayaan sanadkan aan imtixaanayna marka asaguna guddiga ha sii imtixaano qofba qof ha sii imtixaano idinka hadda meesha u fadhida imtixaanaad ku jirtaan marka waa hawl xaj sidaa uu uga muuqdo shaashadda xajkaas magacaas uga muuqdo ayaa dadka soomaaliyeed asalku muxuu yahay waa saan sheegay in ay meeshaan ka soo baxda khidmad wanaagsan iyo sicir macquula khidmad wanaagsan iyo sicir macquula inay ka soo baxdaa meeshaan rabo intaan rabno waa intaas oy dadka soomaaliyeed u soo baxaan inay adeeg fiicanna sida bini aadamka ilaahay ay u helaan inay u helaan oo ay dad muxtaramiina oo la ixtiraamay oo xaj tegey oo bartay waxyaabaha la samaynaya waxaa ka mid a dadka xajka tegaya dadka xajka waa in la baraa xaq bay u leeyihiin qofka kaxaynaya waa inuu baraa xajka waa inuu miiqaadka tusaa waa inuu acmaasha xajka baraa waa inuu arkaanta baraa waa inuu waajibaadka baraa qofku hadduusan arkaan alxaj garanayn waajibaat alxaj u garanayn waxaa waaye uu iska tago meesha iska tago isagoo isku ordayo uu meesha tago hadda waxaa laga yaabaa intuu waxaasoo dhan galo oo xoolahaasoo dhan sii qaado oo dhibkaasoo dhan maro oo safarkaasoo dhan maro haddana xajkiisi inuusan asax noqon su marka qofka xajka ugu asaxo waa in arkaanta xajka la baraa shuruudii la baraa oo waajibaadkii la baraa oo la yidhahda sidaan aad u xajinaysaa qofka xaq buu ku leeyahay
qofka qaadaya waa inuu yaqaan ku imtixaana kuwan oo kaxaynay waa in la ogaadaa wasaaraddu marka waxaan ka rabnaa taasaan ka rabnaa si guud wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ama waxaan dhihi karaa waa wasaaradda ugu muhiimsan dalka wasaaradaha kaloo dhani qayb yaroo nolosha ka mida ayay maareeyaan laakiin tani waxay maareynaysaa waxayba ummadani leedahay wixii ugu muhiimsanaa oo ilaahayba wuxuu bani aadam siiyo wixii ugu muhiimsanaa oo islaamka iyo diintii ayay maareysaa oo hadda waxaan ka hadlaynaa rukni min arkaani salaad islaam ayaan ka hadlaynaa marka wasaaraddan dadka Soomaaliyeed oo dhan diintooda oo diinta islaamka ah ayay ricaayaysaa ay u xil saaran tahay waxaan ka rabnaa marka wasaaradda inay matasho dadka Soomaaliyeed inay matasho dhammaantood madaahibtood hal madhab weyn aan sheegnay laakiin waxay leeyihiin jamaacad waxay leeyihiin duruq kala duwan bay leeyihiin waxaan rabnaa kulligood inay matasho dhammaantood inay matasho la rabaa dhammaantood in ay waxaa la rabaa ay wasaaraddu matasho dhammaantooda wasaarad u tahay dhammaantood ay soo dhaweynaysaa dhammaantood ay la shaqaynaysaa waxaa la rabaa in ay wasaaraddu ay noqoto dallad isku haysa dhammaan turuqda iyo jamaacaadka iyo kooxaha arrimaha islaamiga oo Soomaaliya wada oo dhan inay isku haysaa la rabaa marka laga reebo kuwa munxarifiinta ah ee kuwa hadda lala dagaalamayo oo ayagu kuwaas ma tirsan waa cadow waa islaam kuwaas kuma jiraan meeshaas kuma jiraan waa khawaarijta warkeedu iska cadiyeen laakiin hadday tahay kuwa saxwal islaamiya iyo hadday tahay kuwa turuq suufiya oo labadaas lagu soo koobi karo waxaan rabnaa in ay wasaaraddu noqoto dalladii ay wada hoos hadsanayeen ee isku waday ee u cadaalad samaynaysay ee ayadu ka wada tirsanayd marka Sheekh Mukhtaar qolo gaara ma noqonayo turuq suufiyu ka tirsan yahay saxwal islaamiyu ka tirsan yahay qofku marba hadduu halkan ka fadhiyo kursigaas la intaba ah marka waxaan rabnaa in sidaas loo fahmo oo aan maxaan ku dhahaa aan la faham xumayn wasaaradda iyo wixii loogu talagalay iyo shaqada ay ummadda Soomaaliyeed u hayso arrimaha xajkana waa saan sheegay wasaaradana looga dambeynaa ayadana inoo hagayso kulligeen ayadaan uga dambeyn doonaa waxaan rajaynayaa dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay ku qanci doonaan cadaaladda guddigan iyo wasaaraddu ay wadaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa ugu dambaysta saan sheegay inay dadkeenna ay u soo baxdo khidmad wanaagsan iyo sicir macquul khidmad wanaagsan oo aad u wanaagsan iyo sicir macquul ah oo ay tahay in ay ku qancaan marka laga reebo laga kurma tiro isbaarooyinkii oo dhan in laga qaado oo deedna ay noqdaan waxay bixiyaan wax la yaqaan oo takaaliif ay ayagu raalli ku yihiin oo ay garanayaan in wax lagu qabanayo inay noqoto mid la rabo waa mid taasaan rajaynaynaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan guulaysano oo xajkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ina wada waafajiyo allana inaga aqbalo idinkana allah idin waafajiyo cadaaladdaas ciddii soo sheegata waa sida la sheegay link baa u furan oo complain ay ku soo samayn karaan kadibna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad u saxdaan haddii wax qaldameen in dib siduu Sheekh Mukhtaar sheegay in dib loo saxo oo deedna ciddaas wax ka xumaadeen waa fal bani aadam mistake baa iska dhici doona wuuna iska dhacaa mar walba haddeertay dhacayseen kuwaan samaynayna hore mar walba way dhacaysaa marka in la sameeyo dib loo saxo wixii macquul aad u aragtaan inuu complain saxa oo habkii saxda ku yimid in dib loo fiiriyaan rajaynaynaa Allah idin fududeeyo shaqada waadna ku mahadsantihiin khayrna waa idin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh